بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. intaa kadib assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waxaan ka hadlanaa waa maxay network engineer, muxuu yahay, muxuu qabtaa, shaqadiisu waa nuucee, waxyaalahaas ayaan ka hadli doonaa. kusoo dhawaada Somali Technology Solution qaybta YouTube-ka, waanad mahadsantihiin. network engineer wuxuu isku xidhaa amba wuxuu mas-uul ka yahay communicationka, businesska, dadka business ka shaqeynaya iyo hardwarada la isticmaalayo ee isku xidhaya branchyada amba headquarterka iyo meelaha kale ee branch ku yaalo, laamahu ay ku yaalaan ayuu isku xidhaa. wuxuu kaloo mas-uul ka yahay in device-yada networku ay wada shaqeeyaan si wanaagsan. wuxuuna hormariyaa hadday cilo timaado iyo problem solving, inuu ka ilaaliyo inay network ay ku dhacdo wax wada shaqeyn amba connection ka xumaado, shaqeyn waaya oo sida loogu talagalay u shaqeyn waaya. waxyaalahaas ayuu responsible ka yahay. inta badan wuxuu la hadlaa amba uu la dhiilgaleeyaa device-yada. so sidaad halkan uga jeediin hadda waxaad arkaysiin dad kala duwan oo meelo kala duwan jooga, dad isticmaalaya mobile, dad guriga ku shaqeynaya iyo dad xafiiska jooga. intaba dhammaantood waxay isticmaalayaan computerskaasi network ayaa isku xidhaya. qaarkood waxay isticmaalayaan wax loo yaqaano VPN, waan baran doonaa casharada soo socda hadduu ila idhaahdo. marka qaybahaas ayuu responsibility ka yahay. waxaan u gelanaa shaqada oo qabto. maxay tahay shaqada network engineer oo qabtaa? waa maxay shaqada uu qabtaa network engineerku? marka koobaad wuxuu plan u sameeyaa networka, kadibna wuu design gareeyaa qaabka ay u shaqeyn doonto iyo qaabka loo dhisi doono. kadibna wuxuu sameeyaa deployment networkii ayuu hirgeliyaa. markuu hirgeliyo kadib wuxuu mas-uul ka noqonayaa network protocolada ama nidaamyada ay ku shaqeyso networku, iyo topology, qaabka loo dhisay amba loo balangareeyey topologyga. waxaa kaloo soo raacaa problem solving, inuu problem hadduu yimaado uu xaliyo. operations, inuu systemku sidii loogu talagalay u shaqeeyo. network management, inuu networka oo maareeyo hadday cilado ku yimaadaan, ou ilaaliyo, oo software la isticmaalo. waxyaalahaas oo dhan ayuu mas-uul ka yahay. waxyaalaha inta badan oo ka shaqeeyo waxaa ka mid ah sidaad halkan uga jeediin wax loo yaqaano switchyo, routeries iyo wixii la halmaala. halkan waxaad uga jeediin switchyo kala duwan ayuu ku yaala meelaha data centerka, ayaad arki doontiin. kuwaas ayuu mas-uul ka yahay. waxyaalahaas ayuu isku xidhaa. marka qaybahaas ayaa qaybaha ugu waaweyn ee network engineerku uu ka shaqeeyo ay yihiin. casharada markaa ku geyn doona inaad noqotid network engineer amba kaa dhigee network engineer waa maxay, waa su-aal kale. waa inaad baratid CCNA certification amba Cisco Certified Network Associate, shahaado loo yaqaano CCNA amba aqoonta CCNA. taas ayaa kaa dhigaysa network engineer. opportunity badan iyo meelo badan oo laga shaqeeyo ayay leedahay. marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullah.